عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waxaa la dhahaa Aweys Axmed Cusmaan oo ku sugan dalkan Sweden oo muddo ka shaqeynayay dhinaca waxbarashada iyo isdhexgalka. Marka maadaama aan la socono inuu dhibaato weyn ay ka jirto dhinaca waxbarashada dhalinyarada Soomaaliyeed iyo carruurta iyo dadka waaweynba, waxaan jeclaystay in mowduucan maanta inaan kusoo qaato dhowr waxyaabood oo dhegeystayaasha ay ka faa'iidi doonaan, waxyaabaha keeni kara dhibaatooyinka Soomaalida meel walbo aan joogno markii dalkii aan ka soo tagno aan nimaad dal shisheeye khaasatan Yurub iyo Mareykan oo waxyaabo badan aan kala duwannahay, siyaabaha ugu fiican oo qofka uu guul kaga soo hoyin karo, siyaabaha ugu fiican oo waalidiintu ay taageero weyn u siin karaan carruurtooda iyo dhalinyarada inay guul soo hoyaan. waxa ugu soo horeeya waxa waaye haddii loo baahan yahay in waxbarashada ay carruurta ama dhalinyarada ay guul ka soo hoyaan, waxyaabo badanaa saameyn ku leh. waxa ugu weyn marka hore waxa waaye doorka waalidku ka ciyaarayo marka ugu hore carruurta ay yar yihiin ilaa intay kasoo barbaaraan fasalka koowaad ilaa inta waxbarasho socoto. waxa waaye hab socod oo soconaya oo maaragtay bilaabanaya markay carruurta ay yar yihiin ilaa ay gaaraan aqoon-yahan weyn oo jaamacad ka soo baxay. marka habka processkaas waxaa loo baahan yahay waalidka inuu mar walba daba joogo, inuu noqdo inuu kontaroolo, inuu taageero fiican siiyo, niyad dhis fiican inuu siiyo, inuu waxyaabo badan u qabto. waxaa kaloo meesha jira oo muhiim ah doorka asaga shaqsiga markii lasoo barbaariyo doorka uu ku leeyahay inuu waxbarashadii guul ka soo hoyo, inuu noqdo qof jidkii loo toosiyey raaci kara, qof leh maaragtay xilkasnimo iyo caqli uu kala garan karo waxyaabaha fiican oo waxbarashada ka leexin kara iyo waxyaabaha kale. taa waxaa lagu gaari karaa markii uu ilmihii ay heleen nafaqo fiican, habkoorin wanaagsan, diin wanaagsan iyo caqli lagu toosin karo. marka haddii lagu toosiyo ayaga sii wadi kara. marka ayaga waajibkooda waxa waaye oo bilaabanaa markii waxyaabihii loo baahnaa ay rabeen uu waalidka siiyey, la dhisay maskaxdoodii, dhinaca dhaqaalaha laga kabay, iskuul fiican la geeyey, la daba joogay, la kontaroolay, marka inay waajib ka soo baxaan. tan saddexaad faktorka kale oo saameyn ku leh guusha waxbarashada dhalinyarada iyo carruurta waxa waaye iskuulka ay dhigtaan. iskuulkaas hadduu yahay iskuul wanaagsan oo fahamsan marxaladda meesha ay waxbarashada ka marayaan, macallimiin wanaagsan leh oo la socda. marka wadamada Yurub dhammaanba macallimiinta maaha wadamada kale waxay ku jiraan nidaamkoodii marka lasoo xulaayo waa dad ku takhasusay habka dadka wax loo baro, inkastoo ay jiri karaan dad cusuriyiin ah, dad khaldamay, inkastoo ay jiri karaan macallimiin aan wanaagsaneyn, way kala fiican yihiin. laakiin waxaa loo baahanyaa waalidka doorkiisa ay soo galaysaa oo soo qaadan doono. haddii aan ku bilaabno doorka waalidka waxa waaye carruurta markii ay yar yihiin waa in anaga dhaqan ahaan iyo caada ahaanba Soomaali haddaan nahay iyo wadamada muslimiinta, habka carruurta aan xiriirka ula lahayn iyo habka adduunka hadda uu fahmay waa kala duwanta. ma ahan wax Soomaaliya keliya, Yurub iyo Mareykan oo dhan waxay ku sugneed habkii hadda aan ku suganahay oo ah in carruurtu ay yihiin bini aadan naga garaad yar, naga caqli yar oo u baahan mar walba in la canaanto markay qalad sameeyaan. falkeena wuxuu aad u soo baxaa markii qaladka uu dhaco si aan u toosi lahayn. habkaan ku toosinayna waxa waaye inaan garaacno, inaan dilno, inaan ku qaylino, inaan caaytano. marka habkaasna waxaan u qaadanay in uu faa'iido keeni karo. waana la dili jiray markii aan yareen, waalidka aab iyo hooyaana dili jiray, waxaana dili jiray macallinka wax noo dhigo, macallinka dugsiga qur'aanka oo diintana bara ayaa aad noo dili jiray. marka ayadoo dilkaas macnihiisa uu yahay qaladkii uu sameeyey ardayga in lagu saxo, laakiin waxaa la ogaaday in qaladkaas habka lagu saxayo inay tahay inaysan ahayn hab fiican. waqtigaaseen cabsida uu carruurta ay cabsadeen keliya ayaa laga yaabaa inuu ka fogaado waxyaabaha uu ku socday, laakiin maskaxdiisa waxaa laga yaabaa wixii inuu arkay wax saxsan ama oo habkii natiijadii loo baahnaa canaantu inaysan dhalinin. markii dhinac walba la fiiriyey waxaa loo baahan yahay carruurta in la sii daayana maaha in dhaawac loo gaarsiiyana maskaxdiisa ma fiicna. dhaawaca ayaa kasii
natiijo xun markii arday oo faraha laga qaado. taasna waxa waaye habkaas keliyaan anaga haysanay, laakiin hadda waxaa muhiima inay waalidiin Soomaaliyeed iyo dadka waaweynba inay ogaadaan habka ugu fiicano caruurta lagu bilaabay inay tahay marka hore inay la yeeshaan communication ama wada hadal isfahmid. ilaan qofkan inkastoo uu yar yahay xataa markuu hadalka baranayo waa bini aadan ilaahay maskax siiyey, maskaxdiisa way shaqaysaa, eber maaha. habkay u shaqayso waa inaad adiga istaagtaa oo aad bilowdaa inaad maskaxdiisa u dhisi lahayd. maskaxaasna waxay ku dhisbi kartaa iskuul fiican inuu u noqdo hooyga ama guriga. wuxuu ugu noqon karaa markii uu qalad yimaado ama si qalad uu fikiro in si hab fiican oo wada hadala in loo soco. marka habkaas wada hadalka hadduu bilaawdo early age, mar hore hadduu bilaawdo, waxaa imaanaysaa in caruurtii ay fahmayaan markii qalad uu dhaco ee lagaa celiyo, hab fiican lagaaga celiyo inuu yahay hab fiican. laakiin haddii caruurta muddo dheer kusoo jireen mar alla markii qalad ay sameeyeen in la dilo, way adag tahay inay communication ama wada hadal ay usoo noqdaan. marka waxaa muhiim ah intaasna inaan xisaabta aan ku darno. waxaa kaloo meesha jira in caruurtii iskuulkay wax ku baranayaan, qur-aanka dugsi qur-aankay ku baranayaan. waxaa kaloo muhiim ah in la ogaado guriga ay degan yihiin waalidka uu joogana inuu yahay iskuul qarsoon oo very potential oo fiican. iskuulkaas waxaa waaye kan ugu muhiimsan, maxaa yeelay maskaxda biniaadamku waxay wax ku barataa marmarka qaarkood imitation, ayadoo wixii aragtay haddana samaynaysa. matalan caruurtoo kale qofka weyn ay arkaan aabba iyo hooyo ayaa u ah astaanta ay ku daydaan. marka hooyo iyo aabe haddii wax alla waxay sameeyaan waa u sax, maskaxdooda mar walba waxay comparison ku sameynaysaa ama ay ku qiyaastaa wax alla waxay maqlaan wixii hooyo iyo aabe samayn jireen. haddii hooyo iyo aabe ay yihiin dad ayaga laftigooda aan aqoontooda meel fiican gaarsiisnayn ama qalad ku jira, waxaa dhacaysa caruurtii maskaxdooda inay koobi samayso waxyaaba qalad ah. laakiin haddii waalidku uu yahay waalid fahamsan, waxaa dhacaysa in ay caruurtii ayagoon ogeen oo maaragtay aan la soconin loogu talagelay inay maqlaan in sameeyaan. tusaale ahaan waxaa ka mid ah caruur badan oo waxaa jirta hadday degan yihiin guri hooyo iyo aabba mar walba dagaalamaya, caruurtaas in maskaxdooda waxyaabihii caaytinkii meesha ka socday, dhibaatadii ka socotay, maskaxdooda inay koobi ku samaysay oo markaa isla markaa waqtigaas la jooga aan laga dareemin. laakiin markay muddo ay noolaadaan ayna is arkaan ayagoo noqday dad maaragtay terror ah ama dad jecel rabsh ama jecel dhibaato jecel ama caaytin badan. maxaa yeele maskaxdii ayaa waxay qabatay waxyaabo oo negative ah ama oo loo baahnayn. haddii guriga intay joogaan ay la kulmaan dad wada hadlaayo, hooyo aabba wada hadlaayo, walaala sheekeysanayo, dagaal uu dhici karaa. laakiin markuu dagaal dhacana waalidka oo si fiican ula hadlaayo caruurta u toosinayo markii la arko, waxaa maskaxdoodii waxay baratay waxyaabo fiican iyo habka logic ah oo wax loo kala saxi karo. taa waxay faa'iido ku leedahay berito in maskaxdii si natural ah ay u ogaatay waxyaabo nadiif ah. laakiin nasiib daro dad badan oo family badan oo maaragtay dhaqaale ahaan aan fiicneen inay u badan yihiin inay mar walba hooyo aabba kala tagay ama hooyo aabba isdagaalay. dagaalkaasna caruurta aan laga fogeynin oo mar walba ay ku dhex jiraan. caruurtii marka inay waxyaabo badan oo niyad jab inuu ku dhacay, maskaxdoodii waxyaabo xun ay baratay, taasoo dhan saameyn ay ku leedahay aan la ogeen. marka waxaa muhiim ah waalidiintu inay ka fikiraan cawaaqibta ay u leedahay taa. waxaa kaloo meesha jira caruurtii marka inay maaragtay iskuulkii markii loo diray, waxaa anaga dhaqan ahaan waxaan leenahay in caruurtu in iskuulku inuu yahay hooygii waxbarashada, maskaxdooda lagu dhisaayay, cilmi iyo aqoon ay ku bartaan. gurigana inuu yahay meesha cunta lagu siiyo, lagu canaanto. taa waxa waaye waxaan u arkaa inaysan ahayn mid fiican. maxaa dhacay? guriga ayaa ah akhlaaqda iyo caqliga meesha lagu dhiso. waalidka hadduu bilaabo waayo markii ugu horeyso caruurta inuu jiritaankii ilaahay iyo diinta islaamka waxa ay ku bartaan maaha in ma loo sheego. waxay arkaan oo aabba dukanaayo, waxay maqlaayeen aabba qur-aan akrinaayo, ayadoo loo sheeginay bartaan. ama u sheegay may, maxaa yeelay jiritaankii ilaahay automatically u soo galay. muxuu soo galay? waxaa waaye way arkeen, way dareemeen, iyo dadkii o dhan mujtamacii ayaa ku dhaqma. sidoo kale waxyaabaha fiican oo dhan meesha waxay uga bartaan guriga aan laga bartaa. marka guriga waa iskuul dadban oona ka muhiimsan iskuulka caadiga ah. marka guriga xaaladiisa hadday fiican tahay waxay ka tarjumaysaa horumarka waxbarashada caruurta meel walba ay joogaan.
marka waxaa mar walba muhiim ah waalidka inuu bilaabo caruurta inuu ku dhiso. waynugu adkaanaysaa haddii aanan dhaqan u lahayn inaan maaragtay caruurtii sidaa u dhisno. laakiin barnaamijdeeda kale waxaan kusoo qaadan doonaa habka ugu wanaagsan caruurta loo dhisi karo iyo habka ugu wanaagsan caruurta guriga barnaamijyo fiican oo xataa waalid shaqaynayo si uu ogaado inuu maaragtay gacan ugu geysan karo. marka haddii gurigii sidaa u noqday waxaa soo haray marka iskuulkii markay aadeen. iskuulka meesha macalin baa jooga oo ku takhasusay inuu wax baro. macalimiinta Soomaaliya iyo macalimiinta wadankan way kala duwan yihiin, labaduba way fiican yihiin, laakiin habka waxbarashada wadankeena iyo wadamo badan oo nala mid ah sida wadamada Carabta iyo wadamada Afrikaanka oo system kala sameeya, wadamada Yurub way ka yara duwan yihiin. iskuulka markii ilmihii la soo dhisay waxaa laga yaabaa hawshii 50% in markii iskuulka lagu qabto 50 kale in loo daayo guriga iyo caruurta iyo waxyaabo kale. waqtiga qalin iyo book wax lagu qoro ma ahan kaliya aqoonta loo baahan yahay ardaydu inay bartaan. waxaa jira aqoon badan oo caadi ah oo loo baahan yahay inay ardayda la socdaan. logic mesela sida maskaxda, sida qofka kale loola hadlo, qofka loo dhaxgalo, sida waxyaabaha saxa iyo waxyaabaha xun oo qofka uu kala baran karo, iyo maaragtay waxyaabo badan oo maaragtay u baahan hab nololeedka wanaagsan. iskuulka ayaa laga baran karaa, guriga laga baran karaa, mujtamaca saameyn ku yeelanayo. marka ardaygii hadduu iskuulkii bilaabo, hadduu yahay arday ka yimid Soomaaliya ama wadamo kale oo raba inuu la qabsado wadan sida Sweden iyo Ingiriiska oo kale oo muddo soo jiray oo noloshoodii kasoo shaqeeyay, qaldaad badan soo maray, qaldaad badan oo hadda aan ku sugannahay Africa ayay hor u soo mareen, way saxeen. marka waxay soo gaareen heer ay ogaadaan waxyaabihii ay ku qaldameen. markuu ardaygaas u yimaado u la qabsanayo waxaa loo baahan yahay in ay waalidku inay la shaqeeyaan 24/7 oo mar walba ay daba joogaan, ay la socdaan situationka, xaaladda iskuulka galaaska uu ku jiro siday tahay, ardayga siduu maalin walba uu isku bedelo, hadduu hoos u socdo iyo hadduu kor u socdo loo baahnaa. taana macalinku wuxuu ku ogaan karaa inuu xiriir la yeesho iskuulka, inuu xiriir la yeesho macalimiinta uu kala barto. macalimiintu inuu mar walba contact fiican ama xiriir fiican uu la yeesho, uu tegi karo, uu ogaan karo markii wax ay jiraan. ma aha kaliya markay dhibaata dhacday inuu macalinka loo yeero inuu tago. waxaa badanaaba dhacda maadaama anaga dhaqan ahaan aan lahayn oo aan ceeb noogu ahayn, haddii macalin uu waalid u yeero badanaaba waa iska ma tagno. taana waxaa ugu wacan ileen wadanka aan ka nimid ma jirin nidaam dhaqan ah in markii caruurta macalimiintu markay dareemaan in caruurta ay waxbarashadoodii ama ay ku arkeen waa inay la tashtaan waalidka ma jirin. marka waalidka ku nool wadamada Yurub iyo Mareykanna markii loo yeero badanaaba waa iska dhega tiraan ama ma u arkaan wax muhiim ah. taana waa qalad weyn oo u horseed u noqon karta inuu ardayda ay meesha ay horumar gaari waayaan. waxaa muhiim ah aan rabaa inaan ku adkeeyo, haddii uu hadalka soo yeero in mar walba haddii loo waco shir la dhaho, waxaa jira shir ku saabsan ardaygaaga, wiilkaaga, in isla markii aad tagtid oo aad la socotid. hadduusan shir jirin aan lagu yeerina markuu muddo waqtiga ilmaha markay muddo dhigtaan waxbarashada ay wataan, inaad telefoon aad u dirtid ama iskuulkii aad tagtid oo aad la socotid hadba wixii cusub oo jira. ama haddii adiga aad dareento cunugii inuu habka waxbarashadiisa uusan sidii adiga aad rabtay ama wax ka shakisay, inaad dhahdid aad tagtid iskuulkii. weliba waxaad awood u leedahay oo aad dalban kartaa inaad dhahdid maanta waxaan rabaa inaan la joogo iskuulka hal maalin oo dhan, cunugii aad raacdo, la fadhiisato, galaaska uu dhigto, aa ogaato dadku la sheekeysanayo, dadka noocay yihiin, macalimiinta wuxuu sameynayo o dhan isaa ula socotid, hurtada la siiyo, sida loola dhaqmo iyo wax walba. marka aad adigii aad tagtid oo aad ogaatid, macalimiintana waxay ogaanayaan inaad tahay waalid jecel waxbarashada iyo horumarka ilmihiisa. waxay ku siinayaan si toosa inay gacan ku siiyaan. wadamada waxaa waaye qof jiifa lama kiciyo, qof soo jeeda ayaa hor loo sii wadaa. marka haddii adiga aad ka seexatid laguma dhahayo waa khaldantay, waxaa sidaa u sameey. waxaa loo baahay nidaamka inaad la socoto. marka lagu arko in waalidkaaga caruurtaada inaad jeceshahay oo mar walba aad tegaysa iskuulka xiriir la leedahay, waxay imaanaysaa in lagu arko waalid rabo xataa in laga cabsado oo mar walba markii ardayga wax loo qabanayo in lagu yeero lagu dhaho maaragtay.
waxaa kaloo jirta caruurta inay u baahan yihiin laftigooda investment maalgelin ay u baahan yihiin maalgelin adduunka biniaadanka markuu lacag helo muxuu sameeyaa inuu maalgelin sameeyo mashruuca ujeedadiisa waxa waaye inuu mashruuci maalgeliyo si berito uu ugu faa'iido marka caruurta laftigooda waxay u baahan in la maalgeliyo maanta si berito marka ayagana ay waxtar u noqdaan naftooda wax u taraan waalidkiina wax u taraan marka maalgelinta waxaa ka mid ah inaad geliso waqti inaad geliso lacagtaa gelinaysa waxay tahay masalan ba ilmahaaga haddii dhar fiican oo magaalada la socda yani asxaabtooda hadday ka liitaan waxaa laga yaabaa inay niyad jab u keento مثلا gabadhaada ama wiilkaaga haddii asxaabta ula socdo ay haystaan mobile noocaasa oo asigii uu rabo adigiina aad lacagtii ka hakrato waxaa dhici karta berito inuu ka xishoodo dadkii inuu meesha la tago haddii buwaagtay rabaan oo ama dharkay rabaan oo meesha caruurta kale ay isugu faanayaan uusan haysanin niijabaa ku imaanay niijab markay ku timaadana ay arkaan waalidiinta kale asxaabtooda waalidiintu inay lacag siiyaan ka warhaaya la socdaan asiga waalidkiina uusan ka jecleen lacagtii uu hayay ayuu tageliyey ama maaragtay meel kale u diray laakiin caruurtiina ay dhibaata haysato taana waxay keeni kartaa niyad jab ilmihii inay ogaadaan iskuulkiina inaysan faa'iida ku haysanin waalidkii gurigana inay wada maaragtay garabkii ay ka rabeen inay ka helin marka caruurtii inay meesha ay ku habaabaan ku marin habaabaana dhici karta ama waxyaabo kale ay intiqraan taas waxa waaye nin aan dhaqaalaha waxaa muhiim ah in ma ahan in dhaqaalihii waddamadan waxaa jira waxaa la dhaho usbuuc walba lacag la siiyo lacag yar lacagtaana waxay ku xiran tahay bada'diisi iyo baahida uu qabo waa inaa ogaataa la socotaa marka haddii aad lacag badan siiso aadan ogeynna waxaa laga yaabaa inay xumaato haddii lacagta uu baahnaa xaq uu leeyahay aad ka xagratan waxaa dhici karta inuu xanaaq ama niyad jab inay ku dhacdo marka waxaa waalidka loo baahanyaa inuu asiga laftigiisa inuu ka warhayo meesha uu ku nool yahay iskuulka uu joogo caruurta dhigta waxyaabaha loo baahan yahay waxyaabaha ilmaha ay u baahnaan karaan waalidka fiican wuxuu taagan yahay wuxuu noqon karaa mid taagan caruurtaas oo kale booskooda taagnaan kara baahidooda ka warhaya farxadooda og iyo waxyaabaha ay ku mashquulsan yihiin mathalan haddii waxaa kaloo waxyaabaha kaloo waxbarashada hortaagan ama dhibaato u keeni karaa caruurta waxaa ka mid a haddii aysan lahayn aqoontii dadka badigooda ama asxaabta oo asiga ah haddii aqoontay leeyihiin uusan lahayn matalan xisaabta dadkao dhan ay ilmahoo dhan ay ka shaqeeyaan ay ku baaseen asiga uusan fahmi karin khaladkiisa ma ahan laakiin maba fahmi karaanba waa dhici kartaa ama wuu ka sareeya ama dadaalkii uu ka yareeyey ama waddankuu ka yimid habkii wax loo baro ama luqadiyaa ku adkaatay wax unbaa ku adkaaday wuu ka hakaday wuu ka dabamaray ardaydii kale waxaa imaanaysaa inuu ka xishoodo oo markaa arrintiina ay dhibaato ku timaado marka taa laftigeeda waxay door ka ciyaaraysaa in ilmihii ay niyad jabaan oo markaa ay iskuulkii nacaan qof walba wuxuu jecel yahay meesha inuu ka muuqdo waxyaaba badan uu sameeyo dadka waaweyn laftigooda ayaa waxay aada u jecel yihiin in wax alla wixii ay rabaan inay helaan waxay jecel yihiin markii ay hadlayaan in loo riyaaqo habka loo riyaaqo waxaa waye inay arkaan wixii dadka ay sidee u sameynayaan inay si lamid ah ama si ka fiican haddii taa ay wayaana waxaa dhici karta waxyaabaha sabab u noqon kara in dhalinyarada ama aruurta ay iskuulka guulka sabaynin tan kaloo anaga badanaaba aanan fahmina waxaa ka mid ah waxa la yidhahdo recognition bini aadam walba wuxuu u baahan yahay jiritaankiisa in loo aqoonsado wuxuu u baahan yahay waxqabadkiisa in loo aqoonsado wuxuu u baahan yahay in uu asiga contributionka ama doorka uu cayaarayo in loo aqoonsado matalan haddii taa saddexdaas uu waayo niyad jabaa ku dhacaysa maxaa yeele anigaas hadba idinla hadlayo waxaan jeclahay in aad ogaataan ama u riyaaqdaan waxyaabaha aan ku hadlayo inay yihiin waxyaabo fiican oo laga faa'iidaysto haddaan arko in dadkii oo dhan ay u riyaaqin ama aysan fahamsaneen kuma dhiirinayo inaan mar labaad haddana hadlo marka sidoo kale caruurtaada waxay u baahan yihiin inay ogaadaan in ay meesha guriga ay yihiin qof shaksi maaha caruurtao dhan inaad isku qabato mid walba inaad si gaara magaciisa aada ula hadasho si gaara waxqabadkiisa inaad maaragtay u aqoonsato aad matalanba niyadda u dhisto aad ammaanto iskuulka markuu wax yar sameeyo haddii matalan 20 waxyaabood uu ku dhaco mid uu ku baasay kii guusha uu kusoo hoyay inaad dhacdo aad kor u qaado aad niyadda ugu dhisto marka waxaa imaanaysaa waxyaabahii ku xumaana inay ku dhiirado inuu wax fiican sameeyo taa hadduusan waalidka fahmi karin marka waxaa imaanaysaa in
in dhibaato inay ka timaadataa marka waxaa muhiim ah in loo aqoonsado lagu ammaano iyo in loo garto inay niyadda loo dhiso niyadiska waa waxyaabaha ugu wanaagsan oo la samayn karo marka barnaamijkii waqtiga oo noogu yar insha allah barnaamijyadeena kale waxaan ka hadli doonaa ciqaabta carruurta la siiyo dhaawacyada iyo dhibaatooyinka ay ku leedahay iyo markii carruurta ay ka baxaan nidaamkii loo baahnaa iyo guushii siyaabaha loo badbaadi karo insha allah waa isku imaan doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu